daala ku ron yahay khubarada shirkadda aadihiinaysay marti sharafta abwaaninta dhammaantii saxaafadda waa mahadsantii galab wanaagsan madaxweyne waxaa sharaf noo ah inaad shirka nagala soo qayb gashid loogu magac daray hanaanka dib u heshiisiinta Soomaaliya farta hoose haddaad fiirsidna waxa ay tahay halku dhega shirku isku daalaya maxay noqdana oo muujinaysa calaamad ka turjumaysa in muddo arrintan ay soo socotay iyo burburkan iyo colaadan loona baahan yahay xilli laga gudbo waxaan jeclahay marka hore inaan si gaar ah ugu mahadnaqo howlwadeenadii wasaaradda waxbarashada ee wasaaradda taaliyaha qalbi u dhowahay waxbarashadu markasta howlwadeenada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta oo Yaxye iyo Saamow iyo Ashari iyo Colaad iyo dhammaan iyo guddiga khubarada iyo gabdhaha wanaagsan oo la shaqeynaya iyo guddiga khubarada shacabka loo garaqo laantood waxa ma dhacaynaysa waxaan qabaa in hawl weyn la qabtay colaadda Soomaaliyeed waxa isku haysa si fiican loo qeexay la faguray la dersay dhinacyo badan laga eegay heer qaran iyo heer maamul goboleed iyo heer deegaan iyo intaba in la fiiriyo baan qabaa talooyin in laga soo jeediyo baan qabnaa mudnaan in la kala siiyay meelaha muhiimka ah oo baahan si degdeg ah in wax looga qabto ayaanu aamsanahay iyadoo isku dubaridan waxa laga soo saari doonaa buug soo koobaya intaas oo dhan documentary-na waa laga samaynayaa filmaha oo gaaban oo wixii socday oo dhan ah oo la duubayay istiraatiijiyadna way ka soo baxaysaa wuxuu noqon doonaa barnaamij dhammaystiran oo buuxa waxaan ku daalay arrinta cilmi baarista colaadda iyo khilaafaadka waxaan qabaa in si fiican arrintaa loo darsay oo loo baahan yahay xilligii wax laga qaban lahaa xilligii la xallin lahaa dhibta jirta ee cilmi baaris badan aan lagu mashquuleen arrintaa annaguna diyaar baan u nahay waxaanu jecelahay cid kasta oo arrintaas hawl ku leh oo dib u heshiisiinta danaynaysa inay arrintaa u istaagto waa xilligii wax laga qaban lahaa annagoo xooga saari doona meelaha mudnaanta kowga ah ee mudan intaa haddaan intaa ka dhaho goor sii horreysay madaxweyne oo 10 bilood laga hor joogo anigoo niyad xun markii lagu jiray ololaha siyaasadda uu bilaabanayay oo intaan dalkii sidaa u fiiriyey niyad xum ay hayso oo sansaanka arkila tix yar baa madaxayga ku soo dhacday waa 55 second gabay ahaan marka la duubo marka ma dheeraanayso anaguna akhriska waa boobsiya waxayna ku soo ururaysaa waxay tilmaamaysaa waxayna ku dhici kara haddii wax sii socdaan iyo waxa khaldami kara hoggaan bayna runtii asalkeedu ay goobaysaa ama ay ku soo ururaysaa horta madaxweyne adiga lagu doortay waxaan jeclahay inaysan xujo nagu noqon aniguna waa tiriyo xil baan hayaa oo gabayga aan tiriyey inuusan horta xujo nagu noqon waan rajaynayaa laakiin waa wax ka horreeyey xilligaani waxaba gabaygaasaan boobsiinayaa dib u heshiisiintana waa ku saabsan yahay yaa boogadhay kara nabarrada bogsiin kara bulsho iyo garnaqi kara shacabka ambasaasee baydadee fogaadee sida cawsha kala biday iyo soo bambixi kara bartamaha imaan kara dadku wada bogaadsan yaa cadaalad bogi kara xaqa baal u furi kara aaminaad ballamin kara intaan dadnimadii iyo derisnimada shacabka iyo sumadeenna deegaan la inkirin dunteennaba qolo kale la dabagelin ceeb loo dabaaldegin intaan diinta laga bixin culimmadu dibbood noqon caqiidada la daba marin muslimnimu daciif noqon aakhiro la duudsiin inta aan dulaaladu waxaan duuyo dhaqaniyo dalagyada inoo baxa badihiiyo wixii dihin dalka iibsha nagu odhan idinkaa dufoobee duuduuba sicirku dufanqaatana la odhan yaan maal daldalanayn adduunyada dan moodayn keligii wax doonayn damiirkii wax uga haray aayahan dibooda ah nolosha aan dayacanta ah yaan uga damaynaa damaanad noo samayn kara anaan wax kale ku oran intaas daba dhigin iminkana waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku soo dhawow guddoomiyaha Cabdi Xaashi